أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah halkaad nagala socotaan waa channelkeena barashada caafimaadka ahbaabi maanta waxaan rabaa topic yar oo muhiim inaan ka hadlo insha Allah aan filayo inaad ka faa'iideysan doontaan waxaan isleeyahay topic-gan waa topic aad loogu baahan yahay waa topic ay dadka dhan ku wareersan yihiin xaqiiqdiisa inay helaan hadaba topic-geena maanta waxaa waaye kansarka iyo rajabeetada ama kashaliga qof bas uu yaqaano dad badanaa waxay isleeyihiin kansar ayuu keenaa kuwa kalena kansar ma keeno qofba fikrad ayuu ka haystaa laakiin insha Allah maanta xaqiiqada ayaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo dad badanna way ogyihiin dadna ma ogo inta og waa sidii u ogyihiin intaan ogeyn insha Allah hadda ha ogaadaan haddii ogaadaanna walaalahooda gaarsiiyaan cilmi baaris muddo dheer socotay ayaa waxaa lagu sheegay lamaane ayaa waxay sheegeen in ay sababaan kansarka naasaha inuu sababo kashaliga kadib dood dheer kadib iyo su'aalo badan oo la weydiiyay waxay ka laabteen arrintaas inay xaqiiqo tahay isku soo wada duubo sida xaqiiqada oo la xaqiijiyay 90% 90% waxaa la xaqiijiyay inuusan sababin kansar ayaa la xaqiijiyay laakiin waa shaki wax ku jiro marka sideedaba waxaa fiican waxyaalaha marba hadduu shaki ku jiro waxaan inuu caafimaadkaagii wax u dhibayo hadduu shaki ku jiro waxaa fiican in la iska dhaafo waxa marba hadduu shaki ku jiro saxna way noqon kartaa khaladna way noqon kartaa marka waxaa u daran kuwa kashaliga ka samaysan kuwa suufka waa caadi laakiin waxaa u daran kuwa ee birta ku jirto kuwa qaar bir inay ku jirtaa laga yaabaa kuwaas ayaa u halis badan ama silicoonta kuwa ka samaysan laakiin waxaa jiro kuwa qaar oo maryaha dadka ay xirtaan oo kale laga sameeyay kuwaas wax dhiba ma lahan kuwa shakiga uu ku jirana kama mid aha sababtoo ah waa adoo dirac baati qabo waa adoo xijaab qabo maryahaaga caadiga ayay la mid yihiin laakiin midka la diidan yahay waxaa waaye oo shakiga ku jiro ase xataa hadda kansar uu sababa ma dhahayo laakiin shaki ayaa ku jiro oo waxaa fiican inay dadka iska dhaafaan waxaa waaye midka birta ay ku jirto kuwa qaar silicoona ku jiro kuwaas ayaa la rabaa in la iska dhaafo waa kuwa halista keeni karo oo shakiga ku jiro oo la isku haysto kuwan caadiga oo xaqiiqada oo marada ka samaysan wax dhiba bataatanba ma keenaan shaki intaas la egna xataa kuma jiro sidoo kale qofka mar walba inuu qabo oo gurigiisa inuu ku joogo oo meel kasta ku aado ma fiicno sababta oo kuwan marada xataa sababtu waxay tahay meeshan maanta dhinaca cadaadisda ku haysid waxay keeni kartaa hooyada hadii nuujinayso kale inay caanihi ku xirmaan saas qaabkaas ayaba kansar ugu sababi kartaa inay meesha caanihi ku xirmaan oo caanihi ay ku guntamaan oo dhib kale weyn hadhow ay ku noqoto marka marmar in la qaato way fiican tahay laakiin 24 hour in lagu taagnaado wax caafimaadka u wanaagsan ma aha wax caafimaadka u wanaagsan in laga xishoodo ma aha sababtu waxay tahay wax ay dad ayaa ku faa'iidayo dad ayaa u baahan in xaqiiqada loo sheego marka insha Allah video-gan share gareeya la wadaaga walaalihiina kale ka faa'iideystaan sababtoo ah maanta wax kansar keeni karo ama shaki ku jiro inuu kansar keeni karo wax laga aamusi kara ma aha waa wax muhiim in laga hadlo aad ay muhiim u tahay in laga hadlo insha Allah marka walaalihiin la wadaaga walaalihiin u share gareeya ka faa'iideystaan hadda wiilta hadda gabarta labadaba waa ina share gareysa sababtu waxay tahay naf bin aadan in la badbaadiyaa waa wax muhiim aad ay muhiim u tahay kansarkana waa loo dhintaa inta badan marka insha Allah ahbaabiisaas ayaan isku ognahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.